hab maamulka bangiga dhexe ee baarlamaanka maanta ansixiyay bal ka waran aad iyo aad u mahadsantihiin Som News runtii waxaan maanta kalfadhiga afraad ayaa horta si nabadgelyo leh annagoo shuruuc ilaa 7 sharci ah la ansixiyay iyo miisaaniyaddii iyo kabidda miisaaniyadda marka runtii iyo sharciyo fara badan marka kalfadhi mashquul ayuu ahaa aad iyo aad ugu mahadcelinaa marka midda labaad maanta xeerarka wax ka beddelka hanti dhowrka aan ku sameynay oo aqlabiyad lagu ansixiyay waa wax aad iyo aad muhiim ah because dastuurkeena raacna way dastuurkeena ayaanu raacnay marka aad iyo aad mataqaanaa in dastuurka la raaciyo muhiim tahay midda kale midda bangiga la bedelo waxa waaye sharciga 130 qodobkiisa 12aad farqadiisa oo ah in qofku yahay qof Soomaali ah markuu gudoomiyaha bangiga dhexe noqonayo marka annaga waxaan nirkaliye waxay ahayd in qofku uu noqdo qofka ugu mudnaanta leh oo uu noqdo qofka ugu dhibcaha sareeya fiiri bangiga dhexe waa bangiga bangiyada waxa looga baahan yahay waxa weeye shaqooyinka ugu baahan waxa loogu talagalay waxay tahay sicir bararka inuu la dagaalamo inuu bangiyada uu siiyo wax la deganaansho waddanku dhaqaalihiisa degan yahay iyo shaqaaleynta shacabka waxaas loogu talagalay waa gartay xubno ka tirsan baarlamaanka waxay ku doodayeen in warqadda aanay ku cadayn in qof Soomaali ah ama Soomaalida oo dhan ay ku tartamaan balse qof walba uu ku tartami karo xitaa ajnabi uu madax ka noqon karo bangiga dhexe taana baarlamaanka ay ansixiyeen arrinka ka waran qorshaha staff monitoring program oo qorshaha noo degsan oo naloo baahan yahay inaan deynta looga cafiyo oo aan lacag grants ama lacagna dawladda adduunka uga helno ayaa wuxuu dhigayaa waxay tahay in hab maamulkeena maaliyadeed aanu sida caalamka u jaan qaad u maamulno bangigeena dhexe waxa looga baahan yahay inuu bangiyada adduunka la ku xiran yahay hadda qof ajaanib la keenaya waxa weyn shacabka lagu kiciyo maaha laakiin waxa loo baahan yahay qofka ugu qalma oo ugu muhiimsan oo shaqadan qaban kara oo bangiga dhexe maanta shaqadii bangiga dhexe ma haya horta isweydiina shacabka Soomaaliyeed ma hayo marka waxa looga baahan yahay qof aan leenahay khibradiisa waa leeyahay aqoontiisa waa leeyahay ugu dhibcaha sareeya in qofkaas in la siiyo ayaanu maanta anigu isbeddelka u sameeyay laakiin dhanka kale baarlamaanka Soomaaliya soo ma ansixin sharci ogolaanaya in qof ajnabi ah bangiga dhexe madax uu ka noqdo fiiri qofka qualified wax leeyahay waa qofka ugu dhibcaha sareeya annaga waxa way shaqadan shaqo technical way waan wax temporary ah qorshaha staff monitoring programka oo caalamka noo dejiyo oo deyn looga cafiyo dhaqaalena ku loo baahan yahay ayaa wuxuu tusayaa in bangigeena dhexe uu adduunka la jaan qaadi karo annaga bangigeena dhexe waxaan rabaa inuu noqdo bangi standard leh oo u shaqeeya sida habka caalamiga ah wax kalena ma haddana qof ajaanib la siinay anagu muhiim anagu waxaan sameeynaa kaliya qofka ugu qalma oo qofka ugu qalma shaqadan in la siiyo ayaa muhiim ah golowna si aqlabiyad ayuu ku ansixiyay shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ku kalsoonaada hay'adaha dastuuriga bangiga dhexe anagu waxaan rabnaa inuu noqdo bangiga bangiyada sida bangiga dhexe adduunyada inuu shaqeeyo ma baahanahay waa gartay dhanka kale haddaan ka eegno xubno ka tirsan baarlamaanka ayaa aragtitaa ka duwan qabay oo u arkayay in Soomaaliya si deymaha looga cafiyo bangiyada dhexe oo qof ajnabi ah madax ka noqdo xukuumadda ay u ololeynaysay fiiri baarlamaanku sidiisa in la kala fikir duwan yahay asxaabaana anagu in la kala fikir duwan yahay waa wuxuu u dhisan yahay waxaana dubnaa fakaaraha kala duwan golaha shacabka Soomaaliyeed baa lagu matalaa sida loo kala duwan yahay loo kala fikir duwan yahay laakiin maanta waxa la sameeyay wax weyn waxa ahayd kaliya in qofka ugu dhibcaha sareeya oo shaqada gudoomiyaha bangiga dhexe qabto intaas kaliya ayaan sameeynay haddana kulay dad badan ayaa ku jira pipeline-ka oo laga qaadaya processka interview-gi ama shaqadii laga qaadaya waana waxana lagu xiray inaan tusno caalamka in shaqadeena bangiga dhexe ee sayn qof kaliya Soomaali u xirnayne qof kasta oo u qalma oo u tartami karo waana wax temporary oo muddo kooban weey oo aan doonayn dhaqaale ku soo kabanaa dilay kalfadhiga afraad ee baarlamaanka ayaa maanta soo gabagaboobay dhanka kale haddaan ku soo noqdo ka sadiiq warfaan ahaan waxyaabihii kugu saamaynta badnaa ee kalfadhigan aad la kulantay maxay ahaayeen anigu kulay shakhsiyan waxaan ugu faraxsanaa wixii sharciga aan qoray oo aan guddigeena difaac ka soo shaqeynay waa sharciga xaqsiinta hibooyinka iyo howlgabnimada xubnaha ciidamada qalabka sida sharcigaas oo ciidamada xaqooda siin lahaa inaan ansixinay golahan ansixiyeen oo haddana aqalka sare loo diray ani taas kulay shakhsiyan aniga shakhsiyan guul bay tahay guddigeena difaaca midda kale waxay tahay inaan miisaaniyadii waqtiga lagu talagalay ku ansixinay inaan sharciga miilaadaasha caafimaadka sharciga hay'adda naafada oo naafada Soomaaliyeed maanta ay hay'ad loo dhisayo dhaqaale budgetka miisaaniyadda ugu jirto marka runtii kalfadhigan wuxuu ahaa afraad kalfadhi mashquula oo aad iyo aad ma taqaanaa wax badan oo suurtagaleen waxaan rajaynayaa kalfadhiga shanaadna inuu taa ka sii fiican doona dilahayd dhanka go'aanada markaan eegno go'aankii ugu adkaa ee aad qaadato ee aad ku dhiiratay kalfadhigan muxuu ahaa taasi waxa weeye in ma taqaanaa golaheena uu noo shaqeeyo oo uusan naga xirmin isaga oo ma taqaanaa qabiya go'aankaas uu ahaa waana ka shaqeynaa waana ku guuleysana taas
waa gartay dhawaan waxaad booqatay Puntland aad booqatay doorashadii ay ka qabsatay inkastoo markii hore madaxweynihii hore maamulkiisa uu diiday in xubno ka tirsan dawladda dhexe ay gaaraan ka waran sidii Garowe doorashada ay u qabsantay deegaan doorashadaadiina way ahayd sidee wax ahaayeen runtii horta in qof Soomaaliya la yiraahdo deegaankii laga soo doortay ama dawladda federaalka wasiir ma tagi karaan nasiib darro ayay ahayd taasna waxay ahayd taariikh madow oo madaxweynihii hore kulley daba socon doonto laakiin naftirkeeda waxaan ugu hambaleynayaa madaxweynihii hore Dr. Cabdiraxmaan Cali Gaas sida nabadda leh oo maamulka markaa uu hayay u maareeyeen doorashadii waxaan kaloo u hambaleynayaa madaxweynaha cusub Saciid Cabdullaahi Dani runtii doorasho waxa ka dhacday xor ah oo xalaal ah waana marxalad ayaan ka ahayn shacabka Puntland oo Soomaaliyeed ku nool Puntland waxay tuseen inay mataqaan dad bisil yihiin oo isbeddelkaas way soo dhaweeyeen dawladda federaalkana kulli anaga waa u sheegnay madaxweynaha cusub inaan la shaqeyn doono oo anaga wakiiladiisa ayaan nahay halkaan u joognay inaan kala shaqeyno dawladda federaalka waxyaabaha ka soo gala baahida halkaas la isku xiro dalkan dal federaal weeye in nidaamka loo shaqeeyo oo hore loo socdo ayaa muhiim ah in laakiin sidii hore mataqaana xiriirka ka goosanay waxaas naga gudba loo baahan anagu hal hadaf ayaan leenahay hadafkaas oo naloo soo diray waxay tahay in dalkan oo taagan oo bariis u taagno shacabka Soomaaliyeed rajadaas ay leeyihiin oo adkeeno mustaqbalka Soomaaliyeed anu mustaqbal wanaagsan ayaan warkaaye iftiinka noo soo baxay aan adkeysano anigu haddaan golaha shacabka maantana farxad ayaan oo tahay inay guul noogu xirmay oo kalfadhiga afraad waa gartay ugu dambeyntii reer Galdogob maxaad leedahay reer Galdogob salaamaya deegaan doorashadeedii qaaskeed waaye I love that city waa galas aad jeclahay aadan u tagtagaa Bursaalax Galdogob mataqaana Bani Busle Dar es Salaam deegaanaas mataqaana Kaalkacayo deegaanadii laga soo doortay way qaasatun gobolka Mudug waa gobol aan ku faano waa gobol aad iyo aad mataqaana aan u jeclahay laakiin anu nasiib baan u leeyahay Soomaali inteeda badan waa maray oo ilaa iyo Boosaasana waa gaaray ilaa Balad Xawana waa gaaray Kismaayona waa tagay Jowharna waa tagay Beledweyne intuu dhaxaysana waa tagay waxaana kali ka shaqeynaa waxay ahayd anagu hal Soomaaliyeena hal ummad ayaan nahay inaan dhamaantii ka wada shaqeyno waxa kale maahan in jiilka soo socda ay dareemaan inaan wixii naga tageen aan ka daba tagno haddana aan tafaawuxeedina dalkan u dhisan lahayn taas ay dalkan soo dhisan lahayn oo jiilka ugu dambeeyay naga dhaxli lahaa oo wixii aan isku qabnay isku cafin lahayn oo u soo jeesan lahayn horumar iyo barwaaqo loo baahan yahay xukuumadda iyo golayaasha baarlamaanka iyo dawlad goboleedyadu si wada jir dhamaan loo shaqeeyo Som News aad ugu mahadcelinaya